waxaa maanta shacabkeena markii ugu horeysay muddo dhowr sano kadib ay u suura gashay inay isaga gooshaan dhinaca dhulka goobo badan oo dalka ah oo hore aanay suuragal u ahayn inay isu safraan. goobaha neecawda amniga sida weyn ugu diirsada waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho oo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidanka qalabka sida ay shacabka iska kaashadeen inay si buuxda u hantaan amniga iyo xasiloonida dalka, iyadoo si weyn loo wiiqay awooddii khawaariijta ee qalqalka uga abuurayeen caasimadda. waxaa taasi caddeyn u ah in 7 bilood la soo dhaafay cadowga si weyn loo xakameeyey lagana burburiyey goobihii ay ka soo duuli jireen sida gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. magaalada Muqdisho waxa ay dowladda federaalka u samaysay qorshe iyo ciidan xasilinta caasimadda oo mar walba heegan ah, lagana dareemi karo dhaqdhaqaaqyada magaalada oo haatan noqday kuwo caadi ah, shacabkuna ay si caadi ah noloshooda u wataan. taasna ilaahay ka sokow mahaddeeda waxaa iska leh ciidamada iyo shacabka oo mar walba iskaashanaya ama isgarabsanaya.